Soomaaliya cudud qaran diyaarintooda si weyn u socota waxay ku soo jeedaan dhulkii ay u dhasheen ciidii xuduntoodu tiilay waxay soo socdaan iyagoo ku gaashaaman qalab iyo aqoonba waxay ka siman yihiin damqashada raadadkii ay quluubtooda ku reebeen hadimooyinkii cadaawaha cidina aanay ka nabadgelin ee muddo tirsiga halaagiyo dhibtiisu gashay gugii 16aad Soomaaliya waxa gabaabsi ah warwar kasta oo hore looga qabay in maruu laga kaco halkii lagu kufay daraad nayaayiro dhab loo jeedaalinaya la isla wada yaqiinsan yahay yididiilo dadaal lagu kabay baa dhan kastaba ka socota dhisma ciidan oo dheeliya xagal daac ka dheer yahay ayaa si xawliya ku socda waa dhabada yartii dalkan u dhalatay waxay galeen ciidamada kumanaan iyo kumanaan ku labisan aqoontii militariya tiknoolajiyadii u dambeysay ayaa dalka ku soo jeeda kumanaan kale waxay ku sii qulqulayaan faramaha cadaawaha dalku wuxuu ku wada jiraa 4 marxaladood oo isbarkan xaalad dagaal oo u muuqata in si dhab ah loo guddoonsaday ka taqalluska al-shabaab yagleelidda cudud qaran oo ahmiyadda koobaad labaad saddexaad iyo afraad ba laga dheehanayo in la siiyay dhismaha ciidamada la dagaalanka musuqmaasuq iyo reform aan hal meel ku eekeen waxaa dheer intaasi tirtirka aragtiyihii guracnayd ee adduun weynaha idilkii ay ka wada haysteen Soomaaliya aan dhuganay danka ciidamada si weyn ayaa shacabka Soomaaliyeed gudo iyo dibadba isha ugu haya in ciidamo dhismayaan in da'yartii dugsiyada sare iyo jaamacadaha ka baxay xafiisyada ay ka doorbideen dirayska iyo ciidanimo in ciidamada xooga uu hoggaanka u hayo Generaal Daawud Allah u naxariistay dabadeed generaalkii labaad ee ugu da'yara taariikhda ciidamada xooga dalka waa Generaal Odaywaaye oo isagu waliba jaranjarada ciidanimada ka soo koray bilowgii halganka muddada dheer ee cadaawaha lagula soo jiray shacabku waxay kaloo ka dheregsan yihiin inay meesha ka baxday mushahar ciidan laga cunay iyo musuq halakeeyay oo ay taasi bedeshay ciidamo dhab u dhismaaya iyo mushaharaad ciidamada 100% loo kordhiyay waxay kaloo shacabku wada daawanayaan in faramaha cadaawaha guura laga keeno iyo in su'aalaha haatan taagan ay qayb ka yihiin gobolladii dhexe goormee cadaawaha laga xoray ciidamada shisheeye intee ka hadhay sagootintooda qaraxyadii bilaha iyo toddobaadlaha ahaan jiray waa kuwan meesha ka sii baxayee dabadeed maxaa xigi hase ahaatee aynu eegne dalku kolkuu doraadumay dabadeed la jabay dhanna aanu nabadgelin ciidamada qalabkooda iyo xoryahooduba ay israaceen waa tii laga dhigay galangal iyo goobaar haddaba kamanaanka daayartee soo dhammaystay aqoonta commandosta military ciidamada ka kooban cirdhul iyo badba ee hormo dalka ugu soo wajahan marka laga yimaado faramaha cadaawaha ay ka dagaalgalayaan xaggee loo diyaarshay xeryihii dumay barkood la gatay kuwa kale la qaybsaday qaar kale shisheeyaha la siiyay dib ma loo soo celiyay mase la dhisay xeryahaas hawl baa taale maxaa diyaar u ah ciidamada
iyaba waa su'aale xaggee bay degi dalku xaalad dagaal buu geli wuuna ku jiraa si cadaawaha dagaalkooda looga biyo keeno iyana waa su'aal kale maxaa u qorshaa cisbitaaladii dumee damdaguugan iyo digaandagaha laga dhigay doraad tani waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho horuu socod geedi nololeed iyo dib u dhis aan baqal laga qabin inuu bariiqdo ayaa ka socda ciidamada xeryihii dumay dib badankooda loo dhisayaa oo shaqaa socota tan waa xiradii dimaayo oo diyaarinteeda waxba aanay ka dhinayn ciidan liidu waxay Soomaaliya batay magansiga shisheeyaha ugu xandhigashadii cadaawaha dalkoo baylah galay badiya beriba xanuunka iyo dhibaatadii cadaawaha oo iyana guri looga ilmeeyay waxaynu diiradda wada jir u saari doonaa maxaa ka lilaahiya dib u soo noolaanshaha iyo diiladii naxashka saaran